kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada SES Media waxay runtii noqon doontaa saldhigga xogaha caalamka iyo sidoo kale tiknoolajiyada arrimaha sidoo kale Soomaalida documentary iyo barnaamijyo waaweyn ayaanu ku eegi doonaa gobolka bariga dhexe xiisadiisa oo aad u hulaaqaysay muddooyinkii ugu dambeeyay ayaanu barnaamijkeenan diiradda ku saari doonaa waxaana marti ugu ah Professor Ahmed Xasan Caabi oo ah aqoon-yahan iyo sidoo kale bara jaamacadeed isla markaana ah falanqeeye aad iyo aad ula socday xiisadihii ugu dambeeyay ee gobolka bariga dhexe Professor Caabi soo dhawow waxaan rabaa inaan diiradda saarno bal marka hore adiga oo saddex qodob soo koobaya wararkii ugu dambeeyay waxaan rabnaa inaan waxa inta ka dambeeya aanu diiradda saarno dalka Lebanon iyo waliba dhinaca teknoolajiyada laga soo galay markii hore dagaalkan halkan aad baa looga soo galay dhinaca teknoolajiyada marka teknoolajiyada iyo doorkii ay ku lahayd dilkii madaxdii sarsare ee Xisbullah ayaynu barnaamijkeena diiradda ku saari doonaa Professor soo dhawow dhawahay Cabdirashiid iyo SES Media oo maanta waad madcelinaya teknoolajiyada horta adduunka maanta aynu joognaa waa caalam teknoolojiya adduunka maanta teknoolajiyad baa kala hagta haday dhaqaal noqoto iyo haday noqoto wax walba military wax walba adduunka maanta basekiisu waxa uu yahay waa technology marka wadanka kale qaab intuu ka teknoolajiyad fiican yahay ayuu kaga wanaagsan yahay dhan walba haday military-ga noqoto iyo haday dhanka kale noqoto marka waxaan aaminsanahay teknoolajiyadu hadda maanta dagaalada bariga dhexe ka socdaayo muhiimka koowaad teknoolajiyada kamid ah yani dagaalkii ahaa traditional warfare adduunka hadda waa ka tagay oo inta askari la soo kaxay askari laga hor keeno maanta waa ka tagay dagaalka ugu badan maanta waa information xog baa la isku dagaalay xogtana waxa soo gudbin karta waa teknoolajiyadan maanta la haysto marka teknoolajiyadu waa asaaska dagaaladan casriga ee maanta socda waxa asaas iyo base u ah waa technology dagaalka hadda Iran lagu qaaday oo Iran waxa sheegaya Lebanon ka socda bilowgiisii hore teknoolajiyadu xogaha la ururinayo teknoolajiyad baa lagu soo ururiyay xogaha keenaysa mataqaana waxa weeye drone second iyo satellite second la isticmaalayaay oo waxyaalaha xogaha lagu soo ururinayo hadda pager barnaamijka la yiraahdo ee waagi dhooto lagu qarxiyay madaxda badan oo isticmaalaysay barnaamij yar shirkad anu ma Taiwan ay samaysay buu ahaa programkaas sida la sheego shirkadii baa la soo dhex gashaday waxaanu isticmaalayno oo adduunku isticmaalayo oo teknoolajiyad dad baa sameeya shirkadaha sameeya inagu magaca un baynu ka naqaanaa laakiin aqraad bay leeyihiin yani ujeedooyin baa laga leeyahay maynaan ogin marka shirkadaas waxbaa lagu soo bahalkeeyay kadibna waxa gatay oo isticmaala inta badan barnaamij wax weyn ma ahayn waa barnaamij lagula socdo dadkan madaxda ah inta badan waqtina ma hayaan oo way meel kale gedisan way joogaan wuxuu ahaa barnaamij alarm ah yani alarm qofka la ogaan karo inuu hebel baa soo yani xogta la isugu gudbinayo ah inaad hebel baa ku raba oo kale korsad dareemaysa inaad meeshii ogaatay dabadna meeshii baad wada hadlaysaa yani xiriiriye yar buu ahaa barnaamij baa lagu soo talaashay isku xir ayaa soo baatan tahay isku xirahaas barnaamijkaas ku jiray marka inta badan dadka xagga ciidamada iyo ururadan inta badan dagaalada ku jira baa isticmaala oo ka baqa xogahooda in si dhib yar lagu helo bay ka baqaan marka way arrin ay aad u isticmaalaan weeye barnaamijkaas marka wuxuu suurto geliyay in shirkadaasi ay ka gataan Xisbullah oo kale ka gadato wadamo fara badan baa ka gatay Iran baa qayb ka gadatay baa leeyahay wadamo badan oo kale adduunka ka gatay marka waxay taasi samaysay in barnaamijkii maadaama ay shirkadii og tahay cidii qaadatayna waa la socdaa hal mar baa la qarxiyay hada safiirkii Iran u fadhiyay wadanka Lebanon uu ku jiray dadkaas ku dhaawacmay dhaawacuna halisa soo gaaray hatta waxa dad kale caadi oo shacab isticmaalay yani shirkadu wax badan bay soo saartaa wax badan bay qalabkaas markuu dhex jiray telefoonada TV-yada mataqaana waxyaalaha badan teknoolajiyada la isticmaalo guriga laga isticmaalo dhan buu ku jiray dad badan bay markii la riday dad badan baa wax ku qarxeen marka taas waxa weeye dhibaato fara badan iyadoo aan qubulad la ridin iyadoo aan dagaal lagu qaadin iyagoo aan waxa weeye mataqaana kharash fara badan oo gantaalo iyo waxa lagu soo kicin ayaa si dhibir gurigaagii adoo joogo ku dilaya wixii adigu aad isticmaalaysay marka doorka teknoolajiyadu saas ay muhiim u tahay aragta qalabkii aad isticmaalaysay baa adiga wuxuu kugu noqonayaa inuu adiga naftaadii ku haysiyo sidoo kalena ka gudbiyo inuu adiga ka gudbiyo war ka gudbiyo dhaqdhaqaaqa marka waxa la leeyahay
qolobka hadda iyo qaraxayada lagu qarxiyay wararka dadka qaarkiid diblaasiinta ay dadka ay mataqaan ka wada dadka khubarada dhanka ammaanka waxay leeyihiin wuxuu u sahlayba Israa'iil inay la socoto madaxda Xisbullah inay la socoto dhaqdhaqaaqyadooda ay ogaato ay dhex gasho taasna waxay keentay in tarab loo laayo tarab madaxdii Xisbullah kii ugu sareeyay oo Xasan Nasrullah ilaa ku ugu hooseeyay ciidamada xukuumayay ilaa 20 ilaa 25 sarkaal ugu sareeyay hal maray laba usbuuc ama usbuuc gudahooda fursada ka marka teknoolajiyadu adduunka muhiim bay u tahay maanta dagaalka ka socda bariga dhexe sida Lubnaanna waxa ugu badan oo Israa'iil ay kaga adag tahay ama kaga sareyso ururada ay la dagaalamaysaana waa teknoolajiyada waay satellite-ski ururada programmada waxa isticmaalaysa xoogay ku urursanaysa drones baa la isticmaalaya waxaas oo dhan waxa weeye boogid adigu hawada lagala socda marka taasi waxay keentay in mataqaana waxa weeye la dhibaateeyo tusaalaha hadda ugu muhiimsan waxa weeye ururka Hamas oo kale iyo ururka Xisbullah baa la isbarbar dhigaa maxaa Israa'iil Hamas ay saa ugu geliweys marka waxa la sheegaa isticmaalka teknoolajiyada labada baa kala gedisana Hamas totally ma isticmaasho waxyaalaha teknoolajiyada madaxdeeda sare ma isticmaalaan yani madaxdeeda sare waa adag tahay in la gaaro waayo telefoon noqoto iyo haday noqoto waxa oo dhan waxay og yihiin lala socdo dad kale oo aan iyaga ahayn ay soo sameysteen waxay doonaan ay soo dhaxmarsan karaan marka ma ba isticmaalaan xagga Xisbullah ee isticmaalaysa waa taa xogtooda lagu dilaa lagu qarxiyay marka teknoolajiyadu waa muhiim Hamas madaxdeedu waxay isticmaashaa waxa loo yaqaan traditional information sidii la soo gudbin jiray sida la sheego madaxdeedu qoraalkaas ayaa qofka madaxda laga qaadaa qof kale loo geeyaa qof kale aan ku dhaweyn ayaa markaa laga yaabaa inuu u gudbiyo adduunkii uu markaa la wadaago xogihii kale u gudbiyo waan dhinaca teknoolajiyada baan ku jirnaa teknoolajiyadii ugu dambeysay dagaalka Lubnaan markii uu soo bilowday madaxda lagu qarxiyay saraakiisha lagu qarxiyay wax badan dad badan wax lagu dhigay waliba dadka caadiga ah fara badan wax lagu waxyeeleeyay dilkii madaxdii sarsare ee Xisbullah iyo waliba ninkii lagu dilay Ismaaciil Haniya ee lagu dilay meesha la yiraahdo Iran waliba waxa la yiraahdaa sidoo kale madax sarsaro Iran ka tirsan baa isticmaashay iyaguna qalabkan door intee leeg marka teknoolajiyadani kula hayd dilkoodii marka ugu muhiimsanaa bay kula hayd aniga aragtida ugu muhiimsanaa ugu horeeyay yani waxay ahayd netka lagu yani shabakada lagu ugaarsaday bay ahayd yani shabakada ugaarsiga baa u bixiyay يعني شبكة لجوء قارصة مدحة تاني وحي أهيد وتكنولوجيات به هذي نقول لك برنامج نقول له هذي نقول له ساتلايت سكنية وحيالها الاستعمالي نقول له وحيالها صدق وحوي تكنولوجيات ده لو استعمال لو أنا خبير حق التكنولوجيات ده أنا هين لكن أنك عس سياسة برك اللي مدحة دو أنت اللي بدي بوجيستي برك كأرقنا لبعض هذا أقول فرق بدل ما أنت وحزب الله إيو مثلا أوردن أما إيران هنقطة أما حماس يعني إسرائيل أي كل واحد يسوي واحد كوكعة تكنولوجيا ده كجهر رئيس إسرائيل وضم هذا كلا دون كهذا نقول له إيران هذا نقول له أوردا دجالمية مركا وأقول كأيكو أقول شيء كل شيء بارورا كلا تكنولوجيا دو ماذا هذا أوردا أما إيران هنقطة ماذا هذا هنقطة أما هنقطة كو حزب الله دجالمية مركا تكنولوجيا كرنتي دور مهم بكل هاي مودرن وورفير كان dagaaladan hadda casriga ah socdaay waa dagaalkii teknoolajiyada weey Ahmed waxaan ku weydiin lahaa su'aal hadda teknoolajiyadii ay isticmaalayeen madaxdii Xisbullah iyo waliba dad badan oo markay dadku madax yihiin ama urur dad badan oo shacab la shaqeeya ama shaqaalaha u noqdaan ama wax doonaan ha u noqdaan marka aaladan dad badan baa isticmaalayay oo meel walba ka isticmaalay oo kala ku wada xiriirayay dadkii miyay daadiyeen hadda teknoolajiyadaas ma ka carareen oo wax maxay xagee ku dambeysay wallahi dadkii shirkadii horta soo saartay khasaaro fara badan baa gaaray dhaawac fara badan baa gaaray shirkadii Japan sayd maanu malanaya markii hore qalabka ay soo sameeysay shirkadda programka lahayd in Taiwan ay baanu malanaya wadmo hubo laakiin dhaawac fara badan baa gaaray oo dhaqaale yani sumcad ahaan aad bi hoos ugu dhacday waxayna ku keenaysaa inaysan dib dambe u soo kaban يعني خسارها مركز تدفر بدن وحتى أنا واحد لقى على برنامج كان مشروع كان يوحنا عن لوك كلها هنا لكن ما عهان شركة ده استعماله واحد صوص عرضه أيها لقى على إنس حتى استعماله أما شعب هالنقدين أما بدح هالنقدين مركز تدفر بدن بعد هذه كونا وضادين يعني كوي عصباء وقاعدنا هنا وحلقة على إنس كودك تجينا نقاطا حتى واحد سامين كوي يرنا ساعة وده ما ذكر خود
teknolojiyada isticmaalayaan oo banaanka ka keensanayaan qaarkood shukuug fara badan bay ku keenaysaa qalabka haddii mobile noqoto qalabada teknolojiyada aan noqoto oo TV yani waxay keenaysaa in shaki fara badan uu soo dhex galay marka adduunku uu isjaasuusaya waa wax jira weeye waxaan arkay ra'iisul wasaaraha wadanka Britain xalay lahaa suuligayga waxa igu dhajiyay Netanyahu intuu galay wax igu dhajiyay afiri waa iyagii dawladihii waaweynaa adduunka ba iyagii ba Mareykanka ruuxiisa waxa leeyahay gurigiisa madaxweynaha wax loogu dhajiyay dawladihii waaweynaa ba teknolojiyada iyagu isku isticmaalaya marka door muhiim ah oo teknolojiyada adduunka maanta ay u leedahay mataqaana waxa weeye waxa ka socda adduunku leedahay wayay waa adduun la isma jaxaabinayo waxaan rabaa shirkadii lahayd teknolojiyadan dadka lagu qarxiyay de khasaaraha iyo dhibka geysatay xarunteedii iyo dawladdii ay shirkadani ku aas-aasnayd dalka ka aas-aasnayd maxay tallaabo ma ka qaadayaan oo isla xisaabtan ma jiro miyaa la xisaabtamay shirkadaas isla xisaabtan waa imaanaya oo de shirkadu waa xisaabtan fara badan bay sameynaysaa laakiin de waxay keenaysaa hadda already cases baa furmayba yani la isku isla xisaabtamayo suits yani faylal baa la buuxsay shirkadii buuxsatay laakiin maxay qaban kartaa hadda yani maxaa yani arrintii dhacday khasaarihii gaar laga yaabay maxkamadu hadhow inay wax xukumaan oo adduunku yani la bagdhow hesho laakiin waqti process dheer bay qaadanayaan oo waxyaalo fara badan waqti dheer bay qaadanaysaa marka Soomaali ahaan waxa laga yaabay waxa moodaa inay runtii ay hoos gashay shirkadu iyadu miyay ma ka jawaabtay ma aanan ogeyn bay dhaheen anagu ma ogeyn bay dhaheen lamana socon iyo mana ogeyn runtii sida ay sheegaan iyagu inta badan بقصة مع أنت اللي جسمك يستمع وأنا أوران لها يو هدي أقال لها لكن أدونك سو موجود قلبنا ولا سميه وحجرة قلبنا شركته مال شركة دي بقى إم بيسميها يعني موبايل كهذا أنا هيسنو وحكي كوبي هاي دور ميلاد بالله كلا كنا دور شركته يرى إن أنا موبايل أهم بينه كنا ما قاعد بعدوش على جالس وقرا وحلا ده ما قاعد هبل بليه لكن كن وحكي كوبي هاي laga yaabo ilaa 10 shirkadood 5 shirkadood oo kala yar baa soo sameeyay mid walba ay keen marka waa adag tahay marka inay taa kale tan kale ay jeekareyso at least ay jeekareyso adag tahay marka iyadu inaysan ogeyn waa laga yaabaa inay ogeydooda ugu tala gashayna waa laga yaabaa oo khasaara inta leeg marka ay xamishay oo istaraatiijiyad kale iyadu ay leedahay laakiin se umalan ma suuqa dhaqaalaha iyo ganacsiga marka laga hadlo inay shirkadii iyadu dhibka ay weyn isu gaarsiin lahayd way barnaamijkaas ku soconaynaa wax yar waxaan isweydiin mudan Ismaaciil Haniya markuu joogay Falastiin iyo Qatar iyo dhulkiisii oo deganaa lamid waxba dhibaato ma gaadhin xitaa marna muu oran khatar weyn baan la kulmay laakiin markuu yimid Iiraan si fudud habeenkii buu yimid isla subaxdiiba yimid habeenkiiba waa la dilay maalin buu joogayba maxaa fududeeyay dilkiisa oo sida u soo dedejiyay teknolojiyadan iyo waxyaabahan lug ma ku yeelan karaan maxaa dhacay horta markii gudaha ku jireen waa adag tahay yani waxa la yiraahdaa ururada hadda dagaalama ururka Hamas baa xagga sirta ugu adag iyagoo Israa'iilaan waxba u jirin oo inta yani deegaan ahaan la degan ayaa madaxdeeda adag tahay inay ogaato lacag fara badan iyo kharash fara badan ba Israa'iil ku bixisa inay ogaato Hamas madaxdeeda meeshii ku jira waa ogtahay يعني dadkii hadda يعني maxaabiistii waa ogaan lahayd Israa'iil Mareykankii baa hadda soo galay si arinta uga caawiyo satellite-diisii iyo ku rakibtay meel walba dhaqdhaqaaq walba la socda waana leeyahay taas waxay tusinaysaa leeyahay in Hamas ay information ka qarinteeda iyo in la ogaado waxa ay israaheeda ay kaga adag tahay dawladda waaweyn xataa adduunka jooga sida la leeyahay taasna waxa keentay baa nidaamka isticmaalaan iyagoo u gaarka u ah baa keen markay gudaha madaxda Falastiin ku sugan yihiin Hamas waa adag tahay baa leedahay in la helo laakiin markay banaanka u baxeen muddo fara badan adduunka in fact buu tagaa oo maraa hatta waxa jirta xilli ninka Khalid Mash'al la yiraahdo hadda madaxda waxaan jiray Urdun baa lagu sumeeyay marka madaxdaas inta badan waa madax u joogta in Israa'iil ay dhibaatayso meel walba adduunka joogaan marka inta badan adduunka markay marayaan iyaga ruuxa aad bay isu ilaaliyaan Iiraan markuu tagay runtii lama filanayn sida dhibka yar in Israa'iil ay Iiraan dhexdeeda ku dilayso Israa'iilna fursad bay u aragtayba in Israa'iil Iiraan dhexdeeda ku dili karto Ismaaciil Haniya oo ay dhagax laba shimbirood ku disho madaxdii Haniyana ay disho Iiraan ay ku disho waa laba risaalo moogtay two messages bay diris madaxdiina waa ka takhalustay
meeshii kaga takhalusna waa Iran taas waxay tusinaysaa inaan Israa'iil iyo Iran dhexdeeda waxay rabto ka sameyn karto marka teknolojiyad bay isticmaaleen sorry guriga lagu dilay guriga madaxda u ahaa oo madaxda lagu soo dhaweeyo meel aad loo ilaaliyo weeye hawada Iran waa la socotaa sataladada iyo waxeeda iyo mataaraadadeeda waa la socotaa marka waxa loo isticmaalay oo dhaqdhaqaaqiisa lagu ogaado meeshuu joogaa waxay isticmaalka teknolojiyada oo runtii aaminsanahay inay ahayd Iran dhexdeeda in lagu ogaaday dhaqdhaqaaqa lagu ogaaday laakiin aan ahayn mid usaga wax ku rakibnaa ama usaga wax la socday ma ahayn ninkan Ismaaciil Haniya la yiraahdo laakiin teknolojiyad bay ahayd adduunku waa waxa satellite adduunku meel walba mar adir waxa aragda meelaha ay ku sameey Natanz meel la yiraahdo iyo meelaha kale ay looga shakisan yahay in Iran nuclear ku sameyso 24 saac satellite adduunku waa soo saarayaan wax iska bedelay daartaas shalay ma dhisnayn baa lagu leeyahay maanta la dhisay dhaqdhaqaaqa adduunku maanta marka teknolojiyadu aad buu muhiim u yahay marka madaxda Hamas banaanka lagu dhibaateeyay oo Ismaaciil Haniya kamid yahay waxa fududeeyay waa isticmaalka teknolojiyada oo mutafawiq ay ku tahay reer galbeedkuna ku yahay cidna firimayso Israa'iil ay ba kasii khatarsan tahay mararka qaarkood kaga khatarsan tahay ba duni kale oo reer galbeedka xataa mararka qaarkood Mareykanka iyo Yurub ruuxooda ay kaga sii khatarsan tahay ba xagga teknolojiyada la oran karo ma la oran karaa in Hezbollah maadaama ay sida u taagdaran yihiin dhinaca teknolojiyadana sida ugu jilicsan yihiin markay noqoto madaxdoodina sida fudud muddada labada week ka yar bil ka yar buu socdaa dagaalkan laba week gudihii baana laga takhalusay madaxdii ugu sarsareysay ma la oran karaa waxa ku dhex jirta mukhaadaraad fara badan oo Israa'iil oo Hezbollah ka tirsan baa jira in fact in xog la helay waxa ay u baahan tahay in meesha wax ka socdaan cidi ku joogto yani in cidi ku joogto adduunka maanta horena waa u jiri jirtay dadka noocaas ah la isku darsado agentiska la isku darsado haddana waa la sii laba jibaarantay inta u badanna wada ururkan Hezbollah la yiraahdo xogihiisu aad uma bixi jirin sida horay u dhacday yani xiliyadii hore madaxdiisa oo kale in la target kare ninkii ugu horeeyay waa la waa dad inta badan dadka ururada madaxda u ahay ama Hezbollah waa dad dil u jooga maadaama ay dawladda waaweyn ay sayaan ninkii ugu horeeyay waa laga takhalusay 90 waxa loo rajaa Abbas Musawi gudoomiyihii labaad buu ahaa ninkan marka dad fara badan baa la leeyahay link baa baxay baa leeyahay yani waxa jira baa leeyahay dad fara badan oo u shaqeeya dawladaha ama Israa'iil u shaqeeya oo marka iyagu lug ku leh mataqaana dhaqdhaqaaqa kan cid sheegaysa waayo sidoo kale waxa ka qayb qaadanaysa shaqada teknolojiyadii adduun yani mar hadaan adigu lahayn hawadaada aadan controlling oo aadan hawadaada adigu cidna ka celin karin dhaqdhaqaaqa wala socda satellites ka isticmaalaan iyo drones waxana isticmaalayaan hawada Lubnaan kama faaruqaan 24 saac wixii dhex socda way arkaan marka haday ogaadaan oo ay link helaan oo gudaha looga soo sheego in area-da wax ka jirto focuskay saarayaan area-di focuska markay saaraan aakhirka wixii ka socday way marka waa la leeyahay waxa leeyahay dad fara badan oo waxa uu sirdoona oo laba haday doonaan debel agent oo meelo fara badan u shaqeeya ayaa gudaha ku jira waana tabci oo ururku markuu muddo dagaal ku soo jiro dhow 20 sano 30 sano 40 sano dadka jooga ay way daalaan qaarkood waxa weeye si ay u caajisaan waa laga dhex kaluumaystaa marka dhex kaluumaysigaas wuxuu keenaa marka in dad fara badan la helo oo xataa la oran karo waa dadka ugu dhowga marka dhaga madaxda in la helo oo marka la shaqaaleysiisto marka waxa jira way arrimahaas waana dhacday horena oo dhacday haddana waa la leeyahay waa jirta wale ninka lagu wado inuu Xasan Nasrallah bedelo muxuu yahay ninkaasi xaguu ku sugan yahay hadda isagu laftiisu miyuusan ahayn dadka targetka ninkaas horta magaciisa waxa la yiraahdaa Hashim Safiyuddin baa la yiraahdaa sarkaal sare weeye ururka majlis shuurihiisa ku jira 7 qof oo ugu sareeyay hadda ku jiray oo qaybta finance-ga iyo maaliyadda qaabilsan yahay waa nin runtii la oran karo waa nin xagga Iran aad ugu dhow mutashadida oo kaba adag bal leeyahay ninka la yiraahdo Xasan Nasrallah waxa uu qabaa gabar uu dhalay Qasim Suleymani ninkii Fayliq ee oran jiray Qudus ee Iran ciidankeeda ninkii lagu diri jiray Iraq generaalkii gabadhiisu qaba oo waa nin Iran aad ugu dhow ka adag intii ururku jirayna madaxdiisa kamid ahaa ku soo bartay wax magaalo la yiraahdo oo Iran ku taala oo hawsal cilmi wax lagu baro oo jaamacada waaweyn ku yaala ku soo tababartay waa nin runtii la oran karo xaga balaaqada Xasan waa u dhigmaa baa leeyahay oo aftahan weeye waa ilma abti dhanka kale markii laga eego in eedadiis baa dhashay
يعني وإلما إيدو سيدا اللي هي أو دad قرابة أو عاد يسوق دو وأنا نك لو بدينا يبقى إنه متقنا اللي بركي هورن الآن له هذا الهي إنه مدح إنه بدل يدونه ولكن عبد الله سفي الدين لا يرى هذا وحو مدح كي حفيز كحسب الله إيران وأنك إسكو حرها أعلى marka waan runtii links fara badan marka ay eegto meelaha aad u haysta oo aad moodo in loo diyaarinayay inuu mataqaana bedelayo sida wararku sheegaya ruuxiisa hadda meel ku sugan yahay lama yaqaan waa nin la raadinayo oo kulba lala socdo xaaladiisa oo Israa'iil aad baadi goobayso laakiin waxa la leeyahay waa nin runtii marka dhinac laga eego ururka maadaama darbaxooyin fara badan inkastoo ay ku dhaceen hadda laakiin la oran karo واسي ودي كراني وحسي ودي كرويه حرير في عنا لا إيران لا ودمشق ugu muhiimsan waxa weeye maadaama Iran ay ururka saacidayso حرير كإيران حزب الله waa muhiim marka waxa la oran karaa waaba u sii dhow yahay ninkan aad buu u sii dhow yahay Iran maadaama ninkaasna uu ninka noocaas yahay Iran maxay ilaa hadda xusbilla awoodeeda ay ugu fasaxi lahayd si ay isaga difaacaan ciidamadan cir iyo dhulba weerarka kaga soo qaaday maxay ciidan afantiriya iyo hubkeedaba ugu reeri weyday xaggaas oo hub badan u geyn weyday Iran wixii tabarteeda waa tartay ciidamada aad bay u badayeen Hezbollah taageero far badan oo dhaqaale iyo military hore u siisay qoli 20,000 oo gantaal baan haysanaa waxay Hezbollah yiraahdaan inta badan taariikhdaas iyagu ma leh waa wax Iran xaggeeda farsamo ahaan iyo xataa loo keenay oo aad loo keenay oo mataqaanaa farsamayaqaan Iiraaniyiin jooga rag mustashariin jooga hadda rag la dilay xataa qayb waxa kamid rag mustashariinta Fiilka Qudus nimanka madaxda uga ahaa kamid rag xataa Xasan Nasrallah iyo weeraradii u dambeeyay rag ku dhimanayay madaxda kamid marka Israa'iil gacanta ku haysa Hezbollah military ahaan gacanta ku haysa siyaasi ahaan gacanta ku haysa marka waxba kama hakran wixii ahayn kartay waa siisay runtii waa siisaa oo aad bay u saacidaysaa laakiin وحالة gobolka oo runtii aad u adag ayaa waxay keenaysaa inaysan Iran iyadu aad soo dhaxgeli karin dhaqaalaheeda ciidanka awoodeeda yani dagaal adag oo intay u timaado halkan kama geli karto laakiin sababihii u asaasana waxay ahayd in Iran Hezbollah uu mar walba danaheedana u ilaaliyo Israa'iilna mar walba uu yani waa xajar ay meesha dhigatay baa oran karaa hadii nabad ay timaadana waa ka qaadayna hadii colaad timaadana waa ku isticmaal yani waa meel laga khatar Israa'iil ka khatar gelin karto meesha la yiraahdo waxay ka khatar gelin kartaa Israa'iil marka waa very strategic muhiim waa Iran wayna ilaashataa awood dhaqaale iyo mid military na gacanta ay ku haysaa waxna kama hakrato inta u badan waa adruca yani gacmaha ay ku leedahay mantiqada kuwa ugu muhiimsan weeye Hezbollah marka Iran runtii aad bay u saacidaysaa rabaaxooyinka hadda ku dhacay way daciifin doonaan ururka runtii oo daciif fara badan way gaarsiin doonaan laakiin se ururku wuxuu ku dagaalami doonaa inuu sii jiro Iran waxa muhiim ah inuu sii jiro si ay mar walba awoodeeda bariga dhexe ay mar walba u sii xoogaysato ururkan Hezbollah ee xuduudda ka dagaalamaya hadda ciidamada hirka ah ee Israa'iil difaaca adag ka xidhay haddii la soo jabsado maxaa dhici kara wallahi horena waa u dhacday oo koonfurta wadanka Lebanon Israa'iil baa ka talin jirtay 2000 bay ka baxeen dagaaladuna way socon jireen waayadaas Israa'iil linka koonfurta dhaniyada haysatay mar hada Israa'iil waxay gaartay Beirut bay gaartay xataa oo gacanta ku dhigtay waa laga yaabaa inay gaarto dhulkaas hadda ay ciidankan ay ka takhalusto waa laga yaabaa inay mataqaana ay iska caabinta ay laakiin midda mar walba muhiimka waxa weeye ururkaas urur wali awood ciidan wax badan inkastoo sawaariikh fara badan iyo dhul fara badan ay keedad fara badan Israa'iil sheegtay inay duqeysay laakiin wali urur jira weeye ciidamo awtra badan bay leeyihiin dagaalka way ku sii jirayaan muddo hadii xataa laga adkaado xalaamsana inay mar labaad si mataqaana soo laba kacleen doona waxana waxa keenaysa wax kamid ah xaadanada shacbiga yani taageerada gobolka dadka ku nool koonfurta wadanka Lebanon Shiic dadka ku nool iyo ururku isleeyihiin marka ururku inta dadkaasi taageersan yahay way sii jiri doonaa hadii laga adkaado mar walba way sii jiri doonaa wuxuu noqon doonaa mid sii jira oo dagaalada wada oo maadaama dadkaasi aaminsan yihiin danahooda inuu iyaga qayb kamid ah u difaaco inkastoo dadku gobol hadda la leeyahay dadka koonfurta xoogaa taageeradii ururka ay u hayeen xoogaa way daciiftay bisna mashruuc reere meesha dadka deegaanka degan ay wax ku leeyihiin weeyo way sii jiraya marka hadii Israa'iil xataa ay dagaalkan horumar ka sameeyso waxaan aaminsanaa inay ururkaasi sii jiri doono oo mataqaana dadka sii wadi doono dagaalada muddada fog iyada laga yaabay laakiin muddada dhow kolba waa sii socon doonaan
waayahay intaas ayaan barnaamijkeena kusoo gabagabaynaynaa waxaad nagala socotaan CS Media saldhigga xogaha inta aanu barnaamijkan la mid ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa sidaas iyo amaana Allah nabadino